الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. درسيغو كصابسان سيدي قلبيدنا لو جوغا ديننا لو إلاليا وحفظود معها ugu horeyn qof kastoo ummad gariib ku ah stranger ah aan deegaanka iyo culture iyo dhaqanka ummadaasi ka tirsanayn ma fududa wixiisa inuu haysto eeshu doonaba dunida ha ka joogo qofka galbeedka yimina waxaynu nimi بيئة ama deegaan environment dhisan oo dowlad iyo system iyo nidaam leh inagoo afraad oo qaybsan oo kaliya su-aasha isweydiinta lana waxa weeyaan oo u baahan inaynu aada isu weydiino ma waxaynu u nimi inaynu wax ku bedelano bise waxaynu u nimi inaynu wax kororsanno yani ma waxaynu u nimi maalan waxa quraynu la nimi waa diinteennii iyo nafteenna iyo caruurteenna faamiligaagii oo dhaqan iyo af iyo diin haysta marka ma waxaynu u nimi inaynu wax bedelano oo maalan diin dhaqan af waxa intaynu bedello aynu wax kala qaadano mise waxaynu u nimi inaynu waxeenii wax ku darsanno oo hadafkeenu wuxuu ahaa intaadana hayso insha allahu in kalena ku kororso ku siyaadsa keebuu ahaa waayo mid kasta waxba ka ratibmaya sideedaba qolada sociologiga waxa ay tilmaamaan qofka bini aadamka ah huwiyadiisa identitygiisa afkiisa dhaqankiisa diintiisa wuxuu aaminsan yahay iyo bulshaduu la nooliyey waxay aaminsan yihiin hadday isku mid noqdaan qofkaasi wuxuu ku noolaadaa bay yidhaahdaan fii sacaada wa raaxa wa طmi'naan ilbaal xasilooni deganaanshiya rayrayn iyo badhaadho waa markuu qofku waxa uu rumaysan yahay siduu u fakarayo maalan markaynu waddankeeni joognay waxaynu la noolayn waddan afka aad la wadaagto diinta aad la wadaagto dhaqanka aad la wadaagto wax walba aad la wadaagto marka inaad adigu ama diinkaaga ilaashato ama ilmahaaga diintiisu ay ilaashanto aqalil majhuud waxay dhahdaan effortka ugu yar juhdiga tamarta ugu yar iyo waqtiga ugu yar baad gelinaysa maadaama bulshada wadaagtaan dhaqan iyo diin iyo afba bulsho kastaana markay bulsho tahay ee dhisan tahay huwiyadeeda ama waxay aaminsantahay ama diinkeeda waxa ilaaliya kow wasaarad dhan oo dowladdu u samaysato wasaaradda waxbarashada la yidhaaho waxaa kaloo ilaaliya iclaamka waddanka media TV ha noqdo ama radio ha noqdo ama jariidad ha noqoto ama media waddanku leeyahay mainstreamka waxaa kaloo ilaaliya nidaamka iyo qaanuunka iyo systemka waddanka haddii inta aad ka soo gudubto waxaa ku qabanaya maxay qaanuun baa ku qabanaya marka waa ummaddu markay caynkaa u dhisantay haddaba marka aad timaado adigoo qof qura ah ama laba ah ama 10 qof oo kala gedisana aad u timaado bulsho sidaa u dhisan bulsho dhaqankeedii afkeedii schooling systemkeedii mediaheedii waxbarashadeedii qaanuunkeedii u dhisan yahay gariib aad ku tahay stranger yimi aad tahay aad se rabto waxaagiina inaad ilaashato waxna ka kororsato waa qof iyo bulsho markaa iska hor yimi
laba shay baad dareemaysaa bay leeyihin kow gurba gariib inaad tahay ka labaadna waxay yidhaahdaan challenges waxyaabaha kaa hor imanaya inay wax xooggan yihiin haddii aad rabto markaa inaad maintain garayso inaad haysato waxaagii waxna kororsatid lama mid ahaa markii aad ku noolayd bulshadii ay isku dhanka u socoteen marka kan waxaad u baahantahay bay leeyihiin wakhtiga ugu badan iyo xoog iyo xoolaha ugu badan inaad geliso waxaagii hore saad u xejin lahayd intaa kadibna aad ziyaado soo hesho qurbadu waxaa dhici karta inay kathratu shubahaad tahay muctaqadki iyo waxa la aaminsan inuu aada u kala gedisay iyo shubha badan wax badanoo ku shaki geliya diin ahaan inay kugu soo biirayaan ama waxaa dhici karta inay tahay kathratu shahawaat wax badan oo shahwaati nafsigaaga kiciya mansabdoonkaaga lacagdoonkaaga baahiya bini aadamkee kala gedisan wax badan oo hor orda asal ahaana ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wain tutic akthara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah wain tutic akthara man fi lard dadka inta badan haddaad maqasho jidka ilaahay way kaa luminayaan qolo sociologiguna dee maanta waxay noo tilmaamaan bulshooyinka elite group yar koox yar baa hogaamisay bulshada weyne xaggii loo kaxeeya unbay u dareertaa dhanka loo wado uun waa shibher theory bay yidhaahdaan theoryga xerada xoolaha waxay dadkaba ka dhigaan inay dad xero ku jira yihiin xoolaha uun xaggii loo sahangeeya ama loo kaxeeyo u dareera kolba inay yihiin ilahina wuxuu leeyahay in tutic akthara man fi lardi yudiluka can sabiili illah haddaba su-aasha kooban waxaynu leenahay laba doorasho laba khiyaar oo quraynu haysanaa mid saddexaad ma jiro laba khiyaar unbaa yaalla laba doorasho options aad haysaa yani waa laba uun inaad waxaaga ilaashanayso sidii aad u ilaashan lahaydna inaad caqligeedii xooggeedii tamarteedii keenaysid dheeraadkana markaad raadsanayso kaasi waa optionka kale waa inaad iska noqoto oo wixii awal baad ka soo qaxday dee challenge buu ahaayee kaa aad waajahdo malakaasaa ka fududkane waa labada mid saddexaad ma jiro ka saddexaad dee waa inaad dhimataa saddexaad waa inaad milantaa waa inaad diin iyo dhaqan iyo afba weydaa kaasi isagoo option maaha markaa qofka bini aadamkii markuu xisaabtamayo kaasi ma aha xisaabtan ee waxa xisaabtanku uu yahay labada challenge keebaad u diyaartay inaad waajahdo noloshu alxayaa kullahaana waa challenges nolosha gebigeedu waa caqabaad nolosha fadhiga cid ku dherigtaa waa yartay noloshu waa dadaal iyo caqabad la rabaa in laga tallaabo ee keebaad diyaar u tahay ma inaad kan ka tallawdo caqabadiisa waa waxaagana inaad haysato waxna ku darsatid bise waxaad diyaar u tahay waralkan waxba ku hayn kari maysida inaad xaggaaga iska qabato dee taa lafteedu ma fududee challenges baa yaallay wax la cunaa la raadinaya dhaqaalaa la raadinaya nabad baa la challenge kale xaggaana yaalla inaad kaa waajahdo labada challenge ama labada caqabadood keebaad diyaar u tahay inaad waajahdo weeyaan qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa tajaaribtii ummadihii hore iyo wixii ku dhacay iyo siday qaar diintooda u haysteen iyo qaar siday u milmeen waxaa kaloo qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamayaa qurbadii koowaad ee muslimiintu siday uga baxeen marka tajribo ka horeysay islaamkan aynu hadda haysanno oo taariikhiya qur-aanka way ku taallaa waxaa kaloo qur-aanka ku yaala tajribadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo dee iyaba dhul muslim may joogin yani nebigu markuu soo baxay maka dee gaalaa deganayd madiinana gaalaa deganayd carabina gaalay ahayd midhmidh baa dadka uu islaamay
dhowrkaa qof oo islaamiya isagu waxay ahaayeen mujtamac yaroo koobanoo ku dhex nool mujtamac ka gadisan oo diin ka gadisan haysta afka way wadaagayeen laakiin dhaqan iyo diin ka gadisan oo jaahiliya haysta marka lababa waxaynu u baahanay inaynu wax ka baranno taariikhdu quraanku ka warramaya ku saabsan dadkii mashaakilkaasi qabsaday ka soo baxay ama ku dhacay inaynu si fiican u daraasayno saxaabadii nabiga iyo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam غربة الإسلام الأولى sida ay uga baxeen wayo التمسك بالدين والاعتزاز به في وقت القربة الرين فضود معها ولذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام حكت المامية صحيح الجامع الصغير عن أنس بن مالك حديث كصاروري يأتي على الناس الزمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر ماشي إنه تشالنج يبو النبي قلت المامية ضدك وقت باكو إيمان دونا قفكو دينتي ساينو هايستو كل جنادو أي لم يتنين دحول هايستا يعني دحول طبعا قبطا وتشالنج هذاك وقت أي سيدا الدين تكون نقون دونتا إيمان دونتا أما حديث ابن مسعود ورينا إن من ورائكم زمان الصبر اللي تمسك فيه أجر 50 شهداء منكم maalmaad dambeeya qofku diintiisa inuu ku dheganaado uu la mid yahay konton idinka ka mid ah nabigu tilmaamay sida awgeed quraanka ilaahay wuxuu ka warramay niman reer banu israa'iil la yiraahdo yahuud reer banu israa'iil waa mujtamacyada ugu badan ee ilaahay kitaabkiisu taariikhdooda ka warramay taariikhda reer banu israa'iil xumo iyo samaba way leedahay reer banu israa'iil nabiya ka dhashay nabiya badan quraanku ka tilmaamayo de israa'iil waa nabi yacquub inankiisiyo maxay ah nabi yuusuf walaaladii wayna culimadu badleeyeen nabiye markii dambe noqdeen anbiya badan nabi sulaymaan nabi huud maaha sulaymaan abihi daawud nabiyullaahi muusa أنبياء بدن الرير بن إسرائيل ودت صالحين القرآن كورمية بل إلهي وحكوت المامية إن يكمل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون رير بن إسرائيل وحكم إذا أئمة ضد لقد ضيده ودين إلهي كل جي مركي أي كل صبرين إن يوحد حجستان yaqiintooduna ay rasmi ahayd yani laba midna ma gelin waxan ay diinta haysteen way rumaysanay way yaqiinsanayeen second to that obstacleski ka hor yimid dhibaatadii ka hor timina umay leecin umay dabcin labada shay markay isla heleen baa ilaahay leeyay ay waxay u noqdeen bini aadamka tusaale kuwaas reer banu israa'iil bay kamid ahay waxa kale ilaahay quraanka inooga warramaya group kale inuu reer banu israa'iil kamid yahay bal groupka kale aan eegna waxa ilaahay ku sifeeyay marka ilaahay wuxuu yiri waqata'nahum fil ardi umama reer banu israa'iil waa googoynay baa ilaahay dhulka lagu faafiyay minhum as-salihun wa minhum duna dhalik kuwa suuban iyo kuwa xunba way lahaayeen baa ilaahay leeyay وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون dhibaatooyin iyo wanaagba waa ku itixaamnay bal inay soo noqdaan ilaahay wuxuu sheegay markaa كوا كوي كجدنبي وكوي لمي فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون إلهي وحده كوا قداشد وحمري قلو qoladan maxaa calaamada marka hore kitaabka way dhaxleen dadkii challengeska soo maray adkaa maaha waa dad dhaxlay waa sideenoo kale inagu islaamnimana uma inaan dhiman cidna meel kama inaan xoreysan inagoo dhul muslim degan oo dad muslimiina la nool baynu islaamnimada dhaxlay waliba abiyo hooyadii buu ka dhaxlay bulshadii uu la joogay buu ka dhaxlay way dhaxleen kuwan ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin warithu hada alkitab asalkana waxa la yaqaan qofka bini aadamka ah wuxuu dhididkiisa iyo dheecaankiisa ku bixiyo wuu uga leex jecel badan yahay waxa si fudud soo gala hatta dhaqaalaha caadiga
waxaad adigu ku dhididay si fudud kuma baxaan laakiin xoolaad aabbaha ka dhaxashay inta badan sayidska dhallinyarada wixii ay aabahood ka dhaxleen inta badan way waa lagu tuntaa waa la baabi'iyaa laakiin waxaad adigu dhididkaaga ku keentay waxaa laga yaabaa inaad yamxeeriso ilaaliso oo ku xisaabtantid inaanu hore kaga bixin ilaahay kuwan wuxuu yidhi warithuu hada alkitaab way dhaxleen baa la yidhi dhaxal bay kitaabka ku heleen maxaa caada waa markaa ya'khuduuna carada hada aladnaa wayaquuluuna sayukfaru lana wain yaأtii macradun mithlu ya'khuduu waa iska dambaabayaan waxay doonaan bay samaynayaan marka la dhawar wasideen waxay odhan insha allah ilaahay baa noo dembi dhaafi dabcan ilaahay dembiga ugu dhaafaa laakiin haddana hadday mashkiladu timaadaba ilaahay leeyahy mar kale waa iska qaadanayaan marka amalka war ilaahay baa gafuururaxiima ilaahay baa inoo dhaafiyo iska walaaqda ayay ku wadaan waa maxay ka soo horbaxaya islaamnima waa khilaafayaan waxaanay nafta ugu sheekaynayaan ilaahay waa gafuururaxiima ilaahay baa inoo dhaafi laakiin maaha gafuururaxiimnimo intuu rumeeyey wixii ka joogsaday oo leeyahay ilaahay wixii hore hayga dhaafay markaan wadada saxayaa wain yaatihim caradun mithlu ya'khuduuh baa ilaahay yidhi tii ku labaadoo la mida hadday soo martana halkii bay ka wadayaan waa qaadanayaan baa ilaahay yidhi ilaahay markaa wuxuu ihi war kuwan miyaan ballan ilaahay ka qaadin inay de xaqa ku sugnaadaan oo diintan ku sugmaan oo aakhiro inay dambayso ogaadaan qola waa nooca qolo kalena ilaahay wuxuu yihi waaladiina yumasikuuna bilkitaabi wa aqaamuu الsalaata inaa laa nudiicu ajra almuslixiin waaladiina yumasikuun kuwa kitaabka qabqabsanaya baa ilaahay yidhi masaka oo bitadciifa luga alcarabiya yani waxa weeyaan markaad qabqabato waa qof aan rabin waxaan inuu ka baxsado waxaa laga yaabaa dumar qura qabto ay ka siibato qofka caadiga inuu iska laakiin kani waa qof raba maxay inuu xejisto kuwa xejisanaya baa ilaahay yidhi kitaabkan ee salaada oogaya kuwana ajarkooda dayici maaya ilaahay yidhi idan waa laba miduun inaynu idhaahno insha allah sayukfaru lana waa caruurta waa iska hagaagi doontaa diinku waa arrimaha diinta oo dhamme ay noqdaan insha allahu inaynu sayukfaru lana ku dhisino ku binayno وعلى هذا المذهب قادنه يينا قادنا مذهب التمسك بالكتاب إنه حكي سنه جيل كهر الصحابة سيداي وقبحين صور يركوبا بواحد كسينيا أفرتي سورة ضد القرآن كوجه الرئيس ودقة علماء وحسكوا أفقسيهين أفر سورة ضد قيبة وجه الرئيين القرآن كوسه هردقين والله جاي أبى الروايات كويس نافين يا أفر تنسي وكله الرئيين أنا دركته لكن أفر تاسيني هنا أفر تيوجه الرئي أي بديبة علماء ضد المامان وسورة العلق أنت وجه الرئيسة اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آيات كوجه الرئي وسورة المدثر آيات كوجه الرئي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وسورة المزمل آيات كوجه الرئي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا آيات كوحية هي سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون حول ما ذو يدهدان وحيجي كواد النبي محمد كوب بالعظم وحوها وحي أنسي فضود لوجو شيء نسيح وقال لوجو شيء يعني دور شربو جبريل هل كان قبطه وانتو نفط يسوق كان النبي قوي اقرأ والنبي يقول ما أنا بغاري حتى مركز نفط كل قادو سيدا يولي اقرأ هاي علماء ذو يدهدان الأصل في التعليم وإن سفضود الله يسوق شيء لكن هذه المسألة وحل الربيبي لي في قمة الانتباه والصحوة إن أرنك صوص عضا وح فضودنا وهينين لسوت شيء أفرت الشيء محي شيء يعني وجه الرأي آيات كان يكور رميان لبس صورة ضد مسألة العلم بيكور رميان اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم النون والقلم وما يسطرون هاي علماء يدهدان
waxa ay mas'aladani tilmaamaysaa biljahli inaan diin lagu xejin karin iyadoo jaahil layay inaan waxba la xejin karin asalka diintuna inay ku salaysan tahay carab waqtigeedii waxa laga yaabaa aqoon dadka ugu dambeeya inay ahayd baahiyahay qabtee kale waxa laga yaabaa haddii adiga lagu odhan lahaa maxaa lagu islaaxin lahaa cadaaladda hala raadiya kana hala raadiya wax badan oo kale inay tilmaami lahayd laakiin mas'alatu tawxiid waalcilmi bay yidhahdeen waa wada socotay asalku wuxuu yahay markaa aqoon ilaahay la barto rusushiisa la barto aakhire la ogaado cilmi baa lagu xejin karaa waa shayga koowaad ee laga fahmaya bay yidhahdaan shayga labaad ee laga fahmayo aayaadkani waxa weeyaan bay leeyihiin qofka bini aadamkii ama isagaa dacwo wada ama isagaa dacwo loo wada ama adaa lagu raadaynaya adaa sii milmayo sii socda maalinba in muquuranaya ama adaa wax raadaynayo groupkaaga isku dayaya inaad biiriso halkaaga inaad ka dhaqaaqina inaad cid soo biirsato adaa isku dayaya sawgeed baa ilaahay wuxuu ku bilaabay yaa ayuha almudathiru qum faandir warabbaka fakabir kan istuuduubayow baa la yidhi kacoo diin sheeg rabbigaana weynee wa hiyaabaka fatahir naftaada iyo qalbigaaga iyo maradaada iyo waxaaga oo dhan daahir yeel warujsa fahjur xumahana ka hijrood walaa tamnun tastakthir waxaad wadana ilaahay dartii u wad xolaa ku raadinin adoo ku badsanaya ha samaynin walirabbika fasbir jidkaa haddaad qaadana mashaakil baad la kulmaysaaye sabir oo adkaysaa la leeyahy yani waxa lagu bilaabay nabi maxamed haddaynu dhahno calayhi salaatu wasalaam waaba aayaadkii labaadee kusoo degay sida culamo badani qabto cilmigii ugu horreeyey intuu leekaa waa iqra iyo waxooga riyooyina cilmi intaasuu hayay haddana iyadoo cilmigu intaa ku kooban yaha waxaa la yidhi maxay mabda'a faafi mabda'a bilow idan waxay idhaahdaan khayru difaac si laysu difaaco waxa ugu fiican bay idhahdeen adigu weerar gasho in adiga marka lagu arko la yidhaha war waa kii wadaadkeen buu diin sheegay xagga inooga du adigu inaad tahay qofka wax raadaynaya isku dayaya dadka inuu raadeeyo laakiin insaanku dhibta tirada badan le uma adkaysto ilaa iyo inuu ilaahay xidhiidh dhab a la leeyay mooyaane sawgeed baa waxaa la yidhi yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا واذكر اسم ربك بكرة أوكي إلهي وحولي كان استوضوب يو كيسدد يو بالليل كعو إلهي ستاك markaad dhibi ku qabsato nolosha caadiga ah haddii adigu aad iska qaadi kari weydo maxaad samaysaa sida normalka bini aadamka lagu yaqaano waxa weeyaan inuu fakero asxaabtiisii ciddii xidhiidh kala lahaa war maanta yaad mushkiladan yaa ku caawin kara maalan problem dhaqaalaha kugu dhacay marka koowaad aad mushkiladda xalili karay waxaad odhanaysaa bartalo yaad wax ka soo amaata ama wax ku siiya marka maskaxdaada markaaba waxaa kusoo degdegaya midharhkii xidhiidhkiinu uu fiicnaay ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkan inaad tidhaahdo warbal waxay amaahema inaad wax ka weydiya inaad wax ka heshaba waa suurtagal qofka muslimka ee dhabta ahi markay dhibi ka hor timaado xalka koowaadee uu raadiyaa waxa weeyaan rabu samaawaati walarda inuu xidhiidh la sameeyo man biyadihi malakuutu kullu shay ilaaha gacantiisa wax waliba ku jiraan albaabkiisa inuu garaaco sawgeed baa nabi maxamed markay dhibtu ka hortimi ilaahay wuxuu leeyahy yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila kan isdadayow kan isduuduubayow kac habeenkii intiisa badan in yar mooyaane nuskii ama wax yar ka yaree baa la yidhi maxaa lagu cileeyey innaa sanulqi calayka qawlan thaqiila baa ilaa yidhi war culus baa lagu dhiibayaa
dacwadan iyo diinkan iyo qur-aankan iyo systemkan inaad qaaddaa arrin fudud maaha baa ilaahay leeyahy war culus baa lagu siinayaa laakiin warkan culus waxa kuu fuduudinaya waa maxay xidhiidhkaad ilaahay la leedahay kullamaa xidhiidhkaynu rabbi la leenay uu daciifo isbeddelka nolosheenna xagga xumi wuu degdegayaa mar kasta uu xoogaysto xidhiidhkaad ilaahay la leedahayna xejisadaad xejisanaysa diinkaaga iyo waxaagu wuu xoogoobayaa idan aayaadkan markaan isku soo daro anigoo raba inaan ra'yi guudun ka tilmaamo koobo waxa weeyaan in wax la barto oo diintaada can cilmin aad ku sugnaato waayo shubahaadka kama jawaabi kartid ama ma ka noolaan kartid cilmi mooyaane shubhada daliil baa kaa riixi kara haddaanad daliil haysanin waad jabaysaa idan cilmi inuu yahay laabud shahawaadkana xidhiidhkaad ilaahay la leeday badnidiisa riixa inaad ilaahay xidhiidh badan la yeelato faafinta diintuna environment bay kuu abuuraysaa aad ku dhex noolaan kartid inaad diinta faafisid oo markaasi aada faafisid saxaabadii iyo nebigii markay masaa'ilkaa ku adkaysteen noloshu umay fududayn nolol adag bay la kulmeen qaar la toorjar gareeyo qaar la dilo qaar toorjarka ku dhinta isagoo nebi maxamed arkaya calayhi salaatu wasalaam qaar toorjar lagu dilo saxaabadiisa ka mid a qaar sidii loo toorjar garaynaya iyagoo tii u dambaysay ee laga sii daayo nooc walba way yeesheen haddana ilaahay wuxuu leeyay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila baa ilaah yidhi mu'miniinta waxaa ka mid a rag ka run sheegay waxay ilaahay u ballan qaadeen soo sheego qadiyatu sidqi idan kalama hadlayna ka run sheegay wixii maxay ballan ay ilaahay la galeen fa minhum man qadaa naxba wa minhum man yantadir baa layidhi waxaa ka mid ah qaar sidaa ku dhintay iyagoo jidkii ku taagan iyo qaar sugaya waddadaas inay hayaan ilaahay markuu saxaabadaa tilmaamaya waxaa lagu tilmaamay rijaalun laa tulhiihim تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والركبة إلهي إليه كواسي أنا مشغولين تجارة يا بيع يا وحقدست يا بعمشة لعق حوكسيو أما الدنيا حوكسيو أنا كم مشغولين عن ذكر الله إلهي حسكيس وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صلاة دوغستيدا marar badan waxaa idhahdaa su-aalaha soo noqnoqda had iyo goor waxaa ka mid ah salaada iyo shaqada sheekh dee shaqadii maxaan sameeyaa salaadiiba caynkan salaadiiba cayn waayo shaqada xaggeena muhiima laakiin tan kala agteenna ah taqiilka loo raaday shaqada qiil u raadin maysid iyada shaqada waa shaqo waxaa u baahan in qiil loo raadiyaa waa maxay waa salaada iyo saa loo tukanayay إلهينا وحطو تلماميا قولada tan waxa lagu sifeeyay inay yihiin rijaalun laa tulhiihim tijaratun walaa bay'un an dhikri llahi wa iqaami الصلاة wa iitaa'i الزكاة waayo yakhaafuna yawman tataqallabu fihi الqulubu wal absaar maalin bay ka cabsanayaan dad shaqada in laga eriyo dhaqaala darad ka yar cabsanaysa laakiin qoladani waxay ka cabsanayaan maalin qalbiyada iyo garaadka iyo indhiga iyo wuxuba gelgelmaan cabsida maalinta ka haysa daraaddeed mar kasta iyaga waxa priority-ga u leh number 1 ah cibaadadooda iyo kooga kan waxaan leenahay kow ahlu kitaabkii hore hadday gurbada waxay kaga baxeen baynu kaga bixi karnaa lama sabaruu wa kaanuu biaayatina yuqinuun waladiina yumasikuuna bilkitaab kitaabka kuwii qabsanayay waxaynu kaga bixi karnaa baynu leenahay wixii saxaabadii nebi maxamed kaga baxday عليه الصلاة والسلام يا رسول الله محمد يا قرآن كي كواد النبي وكسود جيسيدو التوجيهية حقه قدري وحنا قبل حكرنا بين لنا مركا إنه قرنه وحينه هيسنا وحينا جم قاننه كقيمة بدني الاعتزاز بالدين يعني ما وحن رادين يا قيمة بدن mise waxaan haystaa qiimo bini aadamku markuu xiibsanaya ama wax gadanayo waxaad wax ku raadisaa maxay dee waxa qiimaha badan leh inuu xaggaaga soo maro
shay taafiha ma iibsatid waxaan qiimo ku joogeen ama waxa kan ma rabtid nolosha madiinka qiimo badan oo aynu ilaalinaa mise waxyaabaha kale ilaahay waxayna baraya inaynu diinteenna muctasiin kuwa ku faano xejista maaha kuwa xejiyo qura xejinta waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo ilaali laakiin haddaynu salaadii qabanno waa salaada iska tuko laakiin dee bal meelaha aan lagu arkayn iyo su-aaluhu waa musqusha ma lagu tukan karaa iyo meelaha ma lagu tukan karaa iyo gaadhiga adigoo wada kursiga ma iskaga tukan kartaa iyo meelahaasay su-aaluhu badan yihiin laakiin al-ictizaazu bidiin uu ka gedisan yahay diinta hadda inaad muctas ku tahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun war cize iyo sharaf waxa le baa ilaahay leeyahy alla iyo rasuulkiisa iyo inta raacday munaafiqu se ma fahamsana taasi maxay keensanaysaa saxaabadii diinta haysay bidhbidhka noloshu ma niyad jabinin maalan dagaaladii ugu waaweynaaye saxaabadu gashay waxaa ka mid a xarbi alqaadasiya ciraaq meeshan la yidhahday ku taallaa ciraaq waxaa inteeda badan haystay bersia dowladdii iiraan baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madaa'in waa baqdaad dhinaceedaba kama foga maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas iiraanta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalka qaadisiya 200 kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaaba ah is hortaagan iyo intii la socotaya saxaabada waxaa hogaaminaya 10 المبشرين كامدة سعد بن أبي وقاص بعيدا كوطة qolada kalena waxa hogaaminaya in Rustam la yiraahdo jananadoodii waaweynay laga dambeeyay kamida marka Rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentally siday u fakarayaan inuu ogaado wuxuu Sacad weydiistay inuu u soo diro cid wada hadal bal u dhexmaro nin baa loo diray uu soo celiyay mid kale bal ii soo dir waa loo diray saddex nin baa kolba mid u tagay saddex saxaabi ayaa kolba mid u tagay مثلا مid kamidun hadaynu soo qaadno Ribci ibn Amir baa kamida ninkani wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo uu tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaale doon haday tahay inaan dhaqaale bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carpetiska ayaa la waday dhulaadu ballaaran ninkan muslimiinta ka socda fars yaro gaaban buu wataa waan intaasoo bilood dagaal ku soo jiray deenin ay ka muuqato adduun iyo dhaldhalaalkii maaha Rabi ibn Amr farasiro gaaban wata soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyay faraskiisii kama degine waxay culimada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka mid uu faraska ku xidhay dabeetana uu ka soo dhaadhaco xaq uu soo dhaadhaco waxay yiraahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adoo hubsita looma tago wuxuu ku yiri boqorku isaga ay yeedhay anigu umaan rabine haddaan rabtaana sidaydan baan ugu tagayaa haddaydan rabina waska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxa la yiri Rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinka ay yeedhay ma hubkaygaan gelaya ama waska noqonaya soo daayay buu ku yiri ma hubkiisa soo daayay isagoo wixiisii si tuu soo galay su'aal baa la weydiiyay markaa ma jaa bikum war maxaa idin keenay abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo maxaa idin keenay saxari uga timaadeen wuxuu ugu jawaabay Allah ibta'athana linukhrij man sha'a min ibadati al-ibad ila ibadati Allah wahda wa min dhiq ad-dunya ila si'atiha wa min jawr al-adyan ila 'adl al-islam ilahi bana soo bixiyay inaanu ka saaro dadka cidii uu doono adoomaha is adoonsanayaan oo ilaahay adoomo u dhigno waxaan u soconaa buu leeyahay bini'aadamka xoreyno makhluuq kale inaanu adoonsan ilaahay oo qura inay dadku adoomo u noqdaan oo dadku xorriyad helaan baan u soconaa buu leeyahay cibaadadu ay ilaahay gaar ku noqoto waxaanu kale u soconaa buu yidhi inaanu dadka dunida cidhiidhigeeda ka saaro ballaceeda u saaro haddaba ninkan kaarbatiyada cascas dhigtay carshiga weyn ku fadhiya ayuu wuxuu ku leeyahay cidhiidhiga ka saaraya cidhiidhigu waa qalbiga kan adduunku qiimo lama fadhiyo weyn kaarbatiyadan iyo waxaan ninkan ku fadhiyaa wax weyn oo qiimo uma samaynayso waxaan waxa kala fiican
cadaaladda iyo maaragtay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxa istaa kala fiican marka wuxuu leeyahay adduunka waa dhib baad ku qabtaaye cidhiidhigan adduun baan kaa bixinayaa waxaan kuu saarayaa maxay ballaca adduunkan ku geynayaa buu leeyahay waxaan kaloo socdaa buu yidhi diimaha dulmigooda inaan kaa kaxayno islaamka cadaaladiisa ku saaro yacni mowqifkani wuxuu sawirayaa ninka kani walow uu meeshan nin ka xoolo badan oo ka بدبرك الدنيا كغفي عن وتاغن إنه معتز بالدين يهي دين تيسوح ودغ ان تاينانو جيرين إنه رميسن تاسو waxay kan san qofkan diintiisa ilaashado ilaahay wuxuu nawxina leeyahay hatta hadii sida kale dhan leedin ka xog bato wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin war haliidanina baa leeyahay murugoonina idinka koreeya hadii iimaanu jiro dad rumaysan tahay rabbiga ay ku xidhan tahay adaa koreeya salawaad adaynu tilmaamno oo saxaabadan reer Makka ah ee Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam rabbi yeesay u muuqdeena en markii Bayt al-Maqdis muslimiintu ay furteen Bayt al-Maqdis ninka furanayay ciidankaasna nin kale oo 10 al-mubashirin hogaaminay Ubaydah ibn al-Jarrah ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yiraahdeen sharti ah furaha sulx baanu galeynaa saasaanu idinku heshiinaynaa laakiin furaha wuxuu baanu u dhiibaynaa amirul mu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu fura ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay Abu Ubayda Umar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yiraahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaale Umar wuu soo baxay وعرب فريه بيت المقدس إنه لو ريجو ماشنا يسقى فرها لو ديبو معاهدة دي لقالينا سداسي أيكو هركش وسوس عليه مركو ماشي يروسو شري أيو حصامر يدول دير يورب هلا يورب مدنا دبتنا الدابدي وفوشنين تعمر كده دقي والله بدي كبودنا الله بحي أيو الله بدي كبودنا هلكم كسوقات neefkiisina soo hogaamiyay dhoobadiina iska soo dhex socday Abu Ubayda iyo ciidamadii muslimiinta ragii soo dhaweynaya ka hor yimo Abu Ubayda wuxuu yiri Umarow ما تشعلن ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك حديثك حاكم ورينيو إن مقالة الدتك دي مدح دينا يكو أركان سيدان أدقو نكن فايداني عقار دوبدا كلها إن لغو أركو ما نشعلي بولي عمر أريجي ودي بصدق أديك عيدنا أوه لو يقول هذا غيرك بيري أبا عبيدة وحن شعلان الله ميدان أديك هينون يداه أبا عبيدة أديك وكاحشوني أبو لي لكن وان عقابي لها أنك لو أنا أديك هيني إنو ياي مركا وكحم يبو لي لو غيرك قالها ميدان أديك هين موركا سكا صوبح أبو لي دبتنا عمر وحو ديب ugu noqday taariikhdoodii Abu Ubayda waa ogiyay laakiin wuxuu yar rabay isagoo amirul mu'miniin ku muuqda amirul mu'miniin xagga dharka iyo haybada inuu meesha yimaado laakiin Umar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inna kunna dhalla qawmin dad aad u dulaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciiseeyo dad naga dhigay buu leeyahay markaanu carab ahayna dhulkayga joognay dad dulaysan baanu ahaan jirnay لكن إلهي وحنو عزيزيو نغو شرفي دين تطن هدانو كرادي نبولا شرفت ميلان دين تيدا هين إلهي وانا ذلينيا إلهي دين بو نغو شرفي وحان دين هين هدانو شرف كرادي نو ذلوبينا حينو قدن لنا حينو قدن لقفكو معتز بدينه إنو رميسنادو إن وحكم مقيين إنانو أغين بدبد كنا الدنيا إنانو قيمة بدن كولا هين تسوحي كان سانيسا إنو دين تيسي حوق وحجستو إلهي سوى النبي محمد الله عليه الصلاة والسلام ومن ورائه صحابة الله الله وحليله فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إلهي وحوله حجسو فاستمسك بالذي أوحي إليك وحي لغوسو وحي يضي حجسو وايو جد صحابات كسوغان تيبا إلهي لي جد قمان بات كتاغانتي وإنه لذكر لك ولقومك قرآن كاسية وحي غاية دين تالغو سودة شينا شرف بوكوية هاي
adiga iyo tolkaaba baa ilaahay leeyahy ilaahayna wuu idin weydiin doonaa marka wuxuu ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita man kaana yuriidu alcizata falilahi alcizatu jamiica aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaaa min duuni almu'miniin ayabtaguuna cindahum alciza faina alcizata lilahi jamiica marka waxaan leenahay shayga koowaad waxa weeyaan inaynu qurbadan kaga baxno wixii ahlu kitaabkii hore ilaahay ku tilmaamay inay kaga baxayeen inaynu kaga baxno wixii saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaga baxday inaynu muctaz ku ahaano dad ku faanaya oo aan qarsanaynin diinta tan inaynu naqaano wixii inala kulmo markaynu waxaan sheegayna macnaheedu ma aha nolosha oo dhan baa iska fududaanayso gaal ku dhibi maayo nolosha wax maya system dhan oo dhisan oo waxaan kasoo horjeedaynuu nimi laabud min tadxiya waa laabud in culays kaa hor imanayo challenges ay jiraan oo dhib ay jirto laakiin waa maxay taxadiyaadka in geesinimo iyo sabir lagala hortago geesinimadu goob dagaalo qura maahee geesinimada adabiga ah baa ka roon kalimatulxaq inaad markasta ku dhawaaqi karto waxaaga inaad muujisan karto inaad ku dhiiran tahay mabaadi'daada inaad xejisan karto ولذلك بقى إلهي غير بنو إسرائيل كي هجاجي وحولي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وركوا إيمانك لقاها ليوبا إلهي الصبر والله الصبر نكتبال ليه مشاكل كوكو بدن دونايو وبني آدم وحن كالله يدن كهر إيمانا ياي يدن كصبر بدن نبا إلهي ليه ورابطوا في ثغوركم قوابها أدكو جرتان إنه فيسيدين نحجسته إلهينا كعب صدى وقوليسان دون تنبا إلهي ليه سبحانه وتعالى انت كدب حينو باهنا هاي نوع من الحكمة نوع من الحنكة نوع من اللباقة نوع من الرفق يدوم مبادئ كو حجسان إنه هدنا انت اينو si fudud wax u wadi karna inaynu wadno marka qofka la yiraahdo diintaada xijisa dadka badhba u fahmo cunfi iyo dagaal iyo qalafsani iyo insida maqiiq meel kasta kala hortag sidaasna ma sax maaha waxaagay hayso xijiso laakiin de martaatay uslubna u noolow yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya خيرا كثيرا وما يذكره إلا أولي الألباب عائشة أيها وحي شيغيسا حديث الشيخين كورين أيان ولا النبي قوتمي يقعد ديكو تشيس أيها عايا راسا وحي كويرادان السلام عليكم السلام لام كالا قبوديا لكن وحلا سكردك يدي اللي يري السلام عليكم السلام عليكم وقيري كوركا قهات وهبار السلام عليكم نوا ربي هاكو حفديو نبت قال يوانا كوركاغا هذا السلام عليكم نوا موت يا جيري بلايو كوركاغا هاتو دبتنا عايشة انت عروتي مركبة وحي تيري بل وعليكم السلام واللعمة إذنك عرضا اللي يا جيري سيانا عدشي وكوركينا إذنك ها طبيتي نبغى عليه الصلاة والسلام إساقو كوانا مغلي وحي يراهدين عائشة مقلية وحي تري أيو عائشة هدنا تلصين يا وحلا يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله عاشاي إلى هو الرفيق وكوسي دبعسن تتكون مرية يحب الرفق في وحول بنين سيد مرسل الله سمايو أي الله تعالى سبحانه وتعالى عائشة وحي مود نبغينا أنو مقلين ملا دمرتني يعني وركبان مقلنا أولم تسمع ما قال وحيكو هاد لين مياد مقال إلهي الرسول كيسيو قد قلت وعليكم بالنبوي ومقلي يعني وعليكم من بان دوسو قابي وحنو قدن لنا هي حديث الرواية إمام مسلم حيث الإمام إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواية قالوا إمام مسلم ورينا الرجيني يدنا وحي شيغيسا عليك بالرفق
وإياك والعنف والفحش إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. waxaan uga dan leenahay caqiidadeena iyo mabaadideena iyo akhlaaqdeena iyo dhaqankeena dhammaantood aan xijisano. taa macnaheedana lagama fahmayo cunfi iyo mashaakil kale aan abuuro lagama fahmayo ee waxaa laga fahmayaa inaynu caqiidada islaamiga iyo dhaqanka islaamiga inaga dul muuqdaan. qadiyadda kale aan tilmaamaya waxa weeyaan waa inaynu kala garannaa maxaan qaadanaynaa maxaan ka tegaynaa. waa inaan kala garannaa miyaynu maydhmaynaa waynu baaba'aynaa dawabaan mise indimaaj. halkan markaad joogtaan erayaa laydiin sharxa la yidhahda maxay assimilation iyo integration. dadka baadh bay yidhahdaan giitobay galaan, qaarna way assimilate gareeyaan, qaarna waa u dhexeeyaanoo waxay galaan maxay integration. giitooga waa intaad meel isku qafilso xero yareeda wax walba may tidhaahdo. taa dee adigunbay kaa suurtagal tae yararkaaga iyo islaamaaga waxaaga kan kama suurtagalaha. haddaad dee meel isku qafili karaysana kaagii baa kuu roonaa inaad isku qafisho waanad xaggan usoo bixin. ku darsankuna dee waa adoo dhintay oo iska milanku. waxaa soo hadhay waxay iyaguna inagu wacdiyaan inanaan u baahanay inaynu fahamno la yidhahda integration. meel walba waxaa la leeyahy integration. politicianskiiyo nimanka siyaasiyiintii bulsho kastoo homogeneous way ka fududay bulshada kala gedisan. tacadudku iyo noociyaadka kala gedisan waxyaabaha qaarkood way ku fiican yihin bay dhahan laakiin siyaasiga uma fiicna. siyaasigu wuxuu jecel yahay dad isu aragti oo isku dhan u jeedo dee dhan qura wada kaxeeyo, laakiin dad geesale waa ku yara dhib badan tahay. marka iyagu integrationka ay sheegaan inta badan sidaas u badan yihin. laakiin adigu inaad integraysto waa sax, laakiin laba weedhood waa inaanu kala garanaa. ما الفرق بين التبعية والاستفادة بين التقليد والعلم؟ حول حياة إنه دميردان راعي نقولنا كضيا نو وحول بكا قاضنا يين وحكفا إيدنا أقولنا ككرسنا وحوين بول حياة وحي وحنفعية يعني دين هذا كهري ما نين إنه كقاضنا ويا. لكن مسائل كعقائد يا دين يا أخلاقيات كان يا عبادات كان وحين إنه كتنازل معها مركا وين إنه كلا قرنا نبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية إنه يدعي دونته لا تتبعون سننا أو سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وحراعي دونته أبو نبي يقولي ودوين كيدين كهرية تاكا يدودودون. saxaabadii damintidka ahayd ee wax iska soo dhicisay ee dhulka xoreysatay ee caynkana buu warkaa ku leeyay. markaasuu nebigu wuxuu yihi weliba xataa low dakhaluu juxra dabbin latabictumuuh aw la dakhaltumuuh. xataa hadday godmasa cagalay hadday galaan waa ka dabagelaysaan buu nebigu yidhi. markaasaa waxay dhahay yaa rasuula allahi alyahuuda wanasaara, ma yahuud iyo nasaara? قال فمن يا كلام النبي يري يا كلام مالين قالوا هدنا النبي وحو يري حديث كان وكله سورنا من قبلكم براعي دونتان. مركز واحدة الروم والفرس ما رومانسكا يو بيرشيانكا يا كلام النبي يري. ابن حجر رحمة الله عليه مركو لبدا حديث بفسير يوحو ليه وحي سياسة دولية يباب كاكو صاب سنة wadada romanska iyo bershiyanka ayaa raaci doontaan. hadday noqoto bidca iyo diin abuurka iyo waxaan kalena waxaa raacaysaan maxay alyahuuda wanasaara. idan asalku muxuu xadiidkani inoo tilmaamaya? wuxuu inoo tilmaamaya qofka muslimka ah wuxuu kaga soocan yahay inuu garto yahuudiya nasaara muxuu kaga soocan yahay, romanis iyo bershiyan muxuu kaga soocan yahay. mabaadi iyo caqaa'id iyo diin baad kaga soocan tahay. maxaa wada leediin تجارب الإنسانية وحي كترسن بني آدم كوحي experience كو دحلي أقوان تن لشيء يورد من تيدا بدن وامحي وتجاربتي بني آدم كو كلا دحلي. إذا وحي نقاضنا إنه يوحي نكتجينا إنه نقرنه. إلهي مركو قرآن كورما يو أنبياء إلهي كورما
في سورة مريم بان رجينيها أنبياء إلهي كورمي نبي هبل نبي هبل نبي بركي أنبياء ذا الله كورمي أي إلهي اسكو الصوت ضدوبة وحولي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا كواسي با إلهي وكوي إلهي النعمي ذرية النبي آدم إيو كوي نبي نوح إيو نبي إبراهيم يا نبي إسرائيل وحيد دلاني أنت أنو هنوني نبي إلهي لي إلهي آيات كي سمرك مقلان وهو خضوعانا وهو سجودا لكن جروب كان نبي هذا كبحسن با إلهي طلبا بهدنا فخلف من بعدهم خلف جروب بقوات ضبان مريبا إلهي لي وهو ضدو دي كوعد محي سمايه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا صلاة يضيعين شهوات نفسي وحي ربطي اسكر راعين كواس النار تقلي ينبالغوت الماما محان وقدون لنا مركا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وحنودن لنا لنا حي وين نقرنا وحين هيسنينه وين نقرنا تجاربتي هوري إلهي وحي نوت الماما يدول وحي للربي إني كتغان mooye wixii la rabay inay xijistaan ka dhacay oo maxaa kamid ah مثلا ilaahay wuxuu tilmaamay watlu calayhim naba alladii aataynahu aayatina fansalakha minha faatbacahu ash-shaytaanu fakana min al-ghaawin waxaa dadka ku akhridaa baa ilaahay yidhi warkii kii aanu aayaadka siinay mid diin garanayuu ahaa maxaa ku dhacay fansalakh waa ka siibmay baa ilaahay yidhi dabeetana shaydaan iyo gruubkaasuu ku biiray كا إلهي مركو تلمامي وحالي فمثله إلهي وحو مركو صوت تلمامي أدي إلهي دون يوقف كان يقف سقنب النقل الله وكال صوشيك وحالي فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كاتو ساليسو أي قبول لمدي بالي أي هدي اللي إريانا عربك والله الله ديا هدوس كفرديانا عربك والله الله ديا حولك على سيدا معها xoolaha kale markay kulayl iyo waxaa dareemaan bay harariyoodaan markay seen nabad qabaan dee ma harariyoodaan eygu laakiin mar kastaba isagoo carab laala kan waxa weeyaan hadday diin loo sheegay haddaan loo sheegin waa isku mid ilaan marka horeba diin buu hayo uu ka baxay waa kitaab xoor dee wadaad quri kitaab xoor maaha haddaynu wadadaa wada cararo dadku waa wada kitaab xoor buu noqonaya ninba intuu hayuunbuu xoorayahay nin salaad xoora iyo nin inka durugsan xooraba ninba intuu hayuu xooraya waxa kaloo ilaahay quraanka inoogu sheegaya shaytaanka qura ma dad mutarabisiinana inay wadada fadhiyaan dad ugaadhsitaga oo jecel inay inaga saaraan ilaahay wuxuu leeyahay wadda kathiirun min ahli alkitaabi لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إن بدنوا أهل الكتاب كمدي وحي تشعلين باي لهينين الدين تاني دين كبحيان إيمان كدبدين قال لما يدين عليان ولبا يقو حق وعدي هاي مري وحقرتين حاسد نما دراديد باي لهيني دي كواسنا ينوى جوغان مركا وحويان وضعي يو أدك شيطان وميش جوغا قولو كلو كو وارسانيسو ميش جوغتا يا أدقو لبع لا هدايس هشان dee arrinku waa khatar marka weynaynu kala garanaa uun maxaynu kororsanaynaa maxaynu aan dib ugu soo noqdo markaasi waxaan ka bilaabayaa halkan waynu nimiyo su-aasha ah si fiican qof waliba uga jawaabo ma waxaagii adigoo haysta inaad wax ku kororsataa baad rabtay mise inaad waxaagii wax ku bedelato ninkii rabay wixiisii inuu wax ku kororsadaa waxaad haysata diin baa ugu weyneed diintii waa inaad xajisaa markaasaynu ka wada hadlaynaa adduun iyo wixii aynu kororsanayna taa haddii la waayo waa waxaygii baan wax ku bedelanayaa adna caydhiya shaqaa lagu siin ee diinta iyo carruurtana waa lagaala tegi adna caydhiya shaqaa lagu siin oo nabadgelye iyo waxaad ku noolaatay oo kale laakiin nabaddu waa maxay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu inoo tilmaamayay
haddii afkaartaad rumaysantay iyo bulshadu waxay rumaysayiin markay iswaafaqaan in nabad helayso wuxuu nabigu yidhi man asbaxa minkum aaminan fi sirbi mucaafan fi jasadi cindahu quutu yowmi fakaanamaa xiizat lahu dunya bixadafiiriha ninka waa bariista isagoo nabad qaba في سربي أي في قومي أو في مجتمعي أو في أهلي gurigiis iyo reerkiis iyo dadkiisi kuwa bari yani bulshadii ay isku waxa min sanaayeen ninka kuwa bariista isagoo nabad qaba kaasoo ah mucaafan fi jasadi jidhaana caafimaad qaba cindahu quutu yawm maanta wuxuu afka galiyana haysta ka adduunkuba wuu ku dhan yahay buu nabigu tilmaamaya yani kaasi wuxuu haystaa ألمني نفسي ولمني العقد ولمني الفكر ولمني الصحي ولا وحي الشيغان ردنا يكور رمان أياكو صوروري لكنك وابرست في غير السرب جروب سعيد أنا يكو وابرست مبادئ أفكاري عقائد كلا قد سنة لإسكالهورية ماضو كاسي مال خطر وجوغا مركز سؤال شو محيطاي haddaad rabtaan inaad waxaa haysateen wax ku bedelataanna dee waa mas'ala haddaad rabtaan wixii ay haysateen inaad haysataana wax kororsataanna waxaa haysateen sidaa u haysan lahaydeen caqligeeda wayna keentaan oo kow waa midnimo inay isku xidhantiin laba waa juhdi iyo dhaqaale iyo xoog iyo waqti dheeraada Soomaaliya markaad joogtay inta diinta ku bixin jirtay hadda waa inaad laba laabkeed iyo saddex laabkeed ku bixisaa hadday dhaqaale tahay hadday waqti tahay iyo hadday effort tahayba juhdi tahay waa inaad ku bixisaa waa inaanu aqbalnaa inaynu invest garaysano waxaynu aaminsanayn si uu u dhowrsoomi karo waxaa laga yaabaa in laga cawdo macallimiinta masaajidka wax dhigtaa oo dee wadcigaba lama socdaan ama si fiican uma garanayaan kani waa caynkan you should be haddaad rabto teen rabno macallinka dunida ugu fiican waa keeni kartaan magaaladiina tan ama Masar ka keena ama Soomaaliya ka keena ama meesha doontaan ka keeno waa keeni kartaan qof well trained ah experienced ah wax garanaya oo aad ilmihiina u dhibtaan waad keeni kartaan mididinka waxayda bara laakiin maxay u baahan tahay inaad invest garaysataan inaad waqti ku bixisaan haddaad tidhaahdo wallaahi dee maalintiina waan soo shaqeeya goormaan wax dhigtaa dee waxaad joogantuun Soomaalidu doqon bay sheegaan yidhi war maxaad u cadayan weyday baa la yidhi maalintiina geelaan raaca buu yidhi habeenkiina waan seexdaa goormaan cadaydaa anigaas wuxuu ka cawday inaanu waqti u helaynin cadaya inaanu waqti u helaynin wuxuu yidhi maalintiina geelaan raaca deeteen waa caynka haddaad tidhaahdo maalintiina geelaan raaca habeenkiina waan seexdaa goormaan diin bartaa dee diin la-aan baa ku leh wax iskala maaha idan haddaynu halkan rabno inaynu joogno diinna haysanno ama dhaqan haysanno ama afkeenna haysanno waa inaynu la nimaadno inaynu invest garayno wixeenna sidii aynu u haysan lahayn oo haddaynu caqli ku invest garayno iyo haddaynu juhdi iyo time ku invest garayno haddaynu lacag ku invest garaynaba waa inaynu tijaabinaa marka inteennina waa haysan karnaa إن شاء الله زيادتنا والرادعين كرنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين